barnaamijka maalin wanaagsan ayaa daawaneysaan qaybihii hore ayaanu ku guda jirnay markan shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay qayb ka tirsan gobolka Nugaal shilkan gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay xalay xilligii dambe deegaanka Dongoroyo ee gobolka Nugaal oo qiyaasi 114 kilomitir u jirta magaalada Garowe ee caasimadda Puntland shilka waxa uu yimid kadib markii uu rogmaday gaari nooca raaxada ah oo ay saarnaayeen dad gaariya ilaa 4 qof inkastoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan waxaana wararku ay sheegayaan in 2 qof oo rag ah ay ku geeriyoodeen halka qof kalena uu ku dhaawacmay waxay sidoo kale wararka laga helayo Puntland ay ku waramayaan in dadka halkaasi ku geeriyooday uu qof kamid ah uu ahaa askari ka tirsan madaxtooyada Puntland kaas oo lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Naxureeye Gambon halka marxuumka kalena oo lagu magacaabi jiray Maxamed Shiine Birjeeb uu ahaa qof shacab ah hase yeeshee dadka deegaanka ayaa waxa ay soo warinayaan in gaarigaasi uu si xawli ah u socday inkastoo aan ilaa iyo iminka aan si rasmi ah loo ogeyn halka uu socday gaarigaasi